Soo dhawaada asxaabay, beri baa waxaa jiray tuulo lagu magacaabi jiray Sitapur oo ku taalay dalka Hindiya. Tuuladu waxay lahayd geed aad u weyn waxaana ku noolaa haweeney dad qalata ah. Haweeneydu waxa ay lahayd timo aad u qurux badan oo aad u dhaadheer, waa ayna jecleed. Dad qalatadu ma ay ahayn mid dadka dhibta, waxa ayna ku mashquuli jirtay nadaafadda jirkeeda. Maalin maalmaha ka mid ah, nin lagu magacaabi jiray Vijay waxa uu qolkiisa ku dareemay kuleyl iyo cidhiidhi aad u fara badan. Waxa uuna soo aaday dibadda si uu hawo u soo qaato. Waxa uuna hoos fadhiistay geedkii ay ku nooleed haweeneydii dad qalatada ahayd, balse waxa uu arkay haweeneydii timaheeda oo hoos u laalaada. Waa uuna naxay oo waa uu cararay. Waxa uuna ka baqanayay haweeneydii dad qalatada ahayd in badan oo uu waxa uu soo eegay gadaal, mana uusan arkin haweeneydii dad qalatada ahayd. Waxa uuna la yaabay sababta ay u soo ceersan weyday, balse waxa uu ku fikiray haddii uu haweeneyda ka jaro timaheeda, dadka tuuladu waxa ay u aqoonsan doonaan geesi. Waa uuna soo baxay oo waxa uu soo aaday gurigiisii. Waxa uuna soo qaatay maqas aad u af badan. Waxa uuna si taxaddar ah u gooyay haweeneydii dad qalatada ahayd timaheeda, weliba isagoo baqanaya. Isla markiiba haweeneydu waxa ay ka soo dhacday geedkii, waxa ayna aragtay in timaheedii la gooyay. Iyadoo ka xumaatay waxay tidhi, timahaygu waxa ay ahaayeen sida naftayda oo kale, maxaad iiga goysay? Maxaan kuu geystay? Vijay oo dareemay in haweeneydu maskiin tahay waa uu ku maadsaday oo waxa uu ku yidhi, ma ogtahay ciddaan ahay? Waxaan hore u laayay dad qalatooyin aad u fara badan. Haddii aan halkan kugu sii arko waa aan ku dili doonaa. Haweeneydii oo weliba ooyeysa ayaa tidhi, tan iyo caruurnimadeydii waxaan ilaalin jiray timahayga, adiguna waxaa si fudud u jartay timahayga. Ma sii noolaan doontid oo waad arki doontaa. Vijay ayaa si kibir leh ugu qayliyay, waa inaad halkan ka tagtaa. Vijay oo aad u faraxsan ayaa gurigiisii ku soo laabtay. Maalintii xigtay, Vijay waxa uu xaaskiisii uga sheekeeyay sheekadii, weliba isagoo faanaya. Xalay toole waxaan aaday bannaanka, waxaana arkay haweeneydii dad qalatada ahayd. Kamaan baqin oo waan wajahay, waxaana dhex maray dagaal aad u badan. Ugu dambeyn waan ka guulaystay, waxaana ka soo gooyay timaheedii, geedkiina waan ka ceeriyay. Maanta kadib kuma dhibi doonto. Xaaskiisii oo aad u faraxsan ayaa tidhi, run ahaantii waalidkay ayaa iiga sheekayn jiray in awoodda dad qalatadu ay ku jirto timaheeda. Haddii aad timaha ka goysana waa ay carari doontaa. Run ahaantii waan kugu faani doonaa. Waxa ayna ku tidhi, ii dhiib timaha, waxa aan suri doonaa albaabka gurigeena si ay dadku kugu aqoonsadaan inaad tahay geesi. Markii ay timaha albaabka surtay, dadkii tuulada waa ay la yaabeen. Mid waliba waxa uu isweydiinayay waxa ay yihiin timahan. Waqtigu waa uu soconayaa oo maalmuhu waa ay dhammaanayaan. Habeenada ka mid ah waxaa soo laabatay haweeneydii dad qalatada ahayd, weliba iyadoo aad u caraysan. Waxa ayna doonaysay inay cunto dhammaan dadkii dulmiga u geystay. Balse maxaa dhici doona? Fadlan intaan haddaad nala soo gaadhay nagu soo biir oo subscribe noo saar channelkeena. Haddii aad horey noola joogtayna noo like garee, lana soco qeybaha dambe ee muuqaalka. Mahadsanid.